بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله. waxaa insha Allah video waan kusoo gudbin doonaa oo markasta anaga shicaar inoo ahayd in aan wax kasta oo kiimika ah aan kaga maarno dabiiciga oo wax kasta haddii ay noqon lahayd quruxdeena ku saabsan in aan maaragtay ku bedelano si tartiib ah dabiicigii iyo cunadii aan cunaynay in aan u adeegsano maaragtay quruxdeena, taas oo aan kaga dheeraanayno insha Allah kaga dheeraanayno wax kasta oo dhibaato ah oo jirkeena ama tinteena u imaan kara. Marka maanta halkan waxaan kusoo gudbin doonaa insha Allah nafaqada tinta la mariyo oo dabiici ah 100% insha Allah, oo ah shaambad markaa ka dhaqato kadib aad marinaysid caruurtana loo marin karo, qofka weynna uu marsan karo. Waxa asaaska ah waa mirahan hadda aad ujeedaan oo la yiraahdo bedri kutaan ama English la dhaho oo loo yaqaan flaxseed. waan ka qoray maqaal Facebooka oo aan ka hadlayo faa'iidada ay leedahay ama ay leeyihiin mirahan la yiraahdo flaxseed. haddaan hal mar hal qodob ku celiyo, waxaa mirahan ay maaragtay hodan ku yihiin axmaad duhniya wax la dhaho oo ah omega 3 iyo omega 6. labadaana waxay aad ugu fiican yihiin tinta ayay waxay u yihiin nafaqo culus. waxay ka bi'iyaan rifrifka oo tinta ay isku daba dhacda. midda kale naacim ayay ka dhigaan oo way jilciyaan. wax kasta oo omega ah sida xitaa waxaa ka mid ah simsimka oo kale sisinta, mirahana waa ka mid yihiin li'anna aad ayay qani ugu yihiin omega 3 iyo omega 6. waxaa kaloo ku jirta nafaqada ayadana creamka qumbaha jood hind, creama jood hind. qumbaha asagana sidoo kale wuxuu u fiican yahay tinta, ayuu nafaqo u yahay oo aada runtii muhiim ugu yahay. waana kareemka cuntada lagu daro, ma aha mid gooni ah oo tinta loogu talagalay. way kala yihiin kareemka iyo caanaha. midkaan isticmaalaya aniga waa kareemkii. haddaynu guda galno, waxaa halka igu jira waa koob mirihii ah ayaan koob ku shubtay iyo qumbihii aan idin sheegay kareemkiisa oo supermarketka laga helo. caaggaasna waan ku shuban rabaa aakhirkii. saamba ayaa iga dhamaatay marka isagaa raba inaan ku shubto iyo khalaadkii aan ku shiidi lahaa markaa haduu dhameeyo. halkaana waa saliido, waxaa igu jira 3 saliid aan isku darsaday, gadaal baan ka sheegi doonaa, iyo malab. biyihii baa halkan ku karkaraya. biyo ayaa karkarsanaysaa oo maaragtay markii saa u karkaraana waxaa ku shubaysaa koobkii mirihii ayaa ku shubaysaa. waxaa la rabaa mirahan way isku dhegdhegaan haddaadan walaaqin. waana jal wax dhegdhegaya, aad u dhegdhegaya, way arki doontaan. waxaa la rabaa inaan maaragtay walaaqa aan laga dayn inta ay saaran yihiin. markaad dareento inay biyaha maaragtay ku yar yihiinna sida hadda aniga waxaan dareemay inay biyaha ku yar yihiin, waxaan sameeyey xoogaa biyihii ayaa maaragtay ku kordhiyey. walaaqaasna waa ku wadaysaa li'anna hal dhagax buu kaa noqonayaa oo isku dhegayaa haddaadan maaragtay sidaa walaaqin. kadib waa miiraysaa. miiridana aad bay u culus tahay. ujeedan aniga waa ku fashilmay, si fiican waa u miiri waayey. marka laa ba'as haddii wax miro kusoo raacaan wax dhiba ma leh. waana ujeedaan sidii u dhegdhegaayo oo u cuslaaday, wax jali buu noqonayaa. markaa miiraysaan waa in isla markiiba dabka aad kaga miirtaan. halkaana saliidihii waan isku daray 3 saliidood almond oil, iyo waxaan isku daray lavender oil oo caraf ka rabo, iyo zaytuun. kadibna malabkii ayaan ku xijiyey. waxaa la sameeyaa qaadada marka hore waxaa lagu hormariyaa saliidaha, malabka ayaa loo dambeysiyaa si malabka si fiican u maaragtay qaadadii kaaga soo dhaco, oo qaadada ayaa la saliidayaa marka hore. kareemkii ayaan ku daray oo qumbaha iyo saliidihii. lavender oil waa wax yar, 4 dhibcood 5 dhibcood ayaa ku daraysaa keliya. ama almond oil iyo zaytuun waan simay. halkaana waa kana waa isku shiiday.
waa isku shiidaysaa ilaa si fiican ay isku dhex galaan oo maaragtay khalaadka isticmaalaysaa. wixii ka dambeeya waxaa ku shubanaysaa caagadii ayaa ku shubanaysaa oo aan samaystay. waa kana halkaana waxaan sameynayay waxaa idin tusahay qaabka uu yahay oo uu noqday markii aakhirka. talaagada ayaadna gelinaysaa. haadaa wabilaahi tawfiiq. insha allah waa ina kulan dambe khayr baa idin rajay. asalaamu calaykum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.